aaway warkii gaalada dhagax baa soo dhacaya aaway 29 abriil shalay bay ahayd dhagaxii 3 milyan oo kiiloomitir oo mayl u jirta ka badan buu maray xawliga uu ku socdo darteed ayaa in yar gooday atmosfeerka dhulka markuu soo gaarayna asagoo budo oo kale buu soo daatay oo aan la dareemayn socodkiisii baa khaldamay meel kale u leexday xagga qorraxdu aaday waa soo jiireeyay isagoo qiiqaayo haddana soo socda waqti kalena soo dhici doona alxamdulillaahi alladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu cala diini kullihi walow kariha alkaafiruun الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال إن شاء الله تعالى ما أنت أو بشهر رمضان أيتهي تضبع أيتهي مالين خميسة بشكل أبريلنا أيتهي صدن لماذا كون يلواتنك waxaan rabaa inaan kulligan isla fahamno ama aan isu sheegno aaway warkii gaalada dhagax baa soo dhacaya aaway 29 abriil shalay bay ahayd ma wax dhagaxaad maqasheen maya arrinta waqti in loo xadido wixii dhacaya waxaa keliya oo iska leh oo aan ka qaadanaynaa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa ideolojiyada xaniga teknolojiyadu yaanin maskaxdanadii qabsanin iyagii markay arrintii dhici weyday 3 arrimood bay ugu kala qaybsameen gaaladii naasa iyo kuwa kale ee caalamka cirbixiyeenna dhahaya 3 bay u qaybsameen qole waxay tiri dhulka wuu dhinac maray dhagaxii 3 milyan oo kiiloomitir oo mayl u jirta ka badan buu maray qolena waxay tiri misaarkii socodkiisii baa khaldamay meel kale u leexday xagga qorraxdu aaday waa soo jiireeyay isagoo qiiqaayo haddana soo socda waqti kalena soo dhici doona kuwana waxay yiraahdeen xawliga uu ku socdo darteed ayaa in yar gooday atmosfeerka dhulka markuu soo gaarayna asagoo budo oo kale buu soo daatay oo aan la dareemayn annagu waxaan leenahay aamanaa billaahi wa rasuulihi calayhi salaatu wasalaam haddii ilaahay qadaf sameeyo wax soo rido allah qadaray waqti muxadadana nebigu ma sheegin laakiin nebigu waa sheegay ummaddan in qadaf iyo masakh iyo khasab uu ku dhici doono qadaf xagga samada laga soo gano dhulka la gooyo tan dhulgo-a nebigu calayhi salaatu wasalaam waqtigiisa waaba sheegayba oo 10 wuxuu ku daray 10 ugu waaweyn calaamada saacadda calaamadaha saacadda 10 ugu waaweyn oo ilaa aad ka aragtaan saacaddu ma dhacayso uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ku jirta dhulgo jasiira alcarab ka dhacaya dhulkii hoos ka ruqaya iyo mid bariga ka dhacaya iyo mid galbeedka ka dhacaya amaa masakha iyo qadafka waqti muxadada nebigu nooma sheegin calayhi salaatu wasalaam inay dhici kartana diinteenay ka mid tahay nimankii yidhi 29 abriil dadka qaar baa Canada iyo Greenland ka qaxay isu diyaariye meelo kale u wareegay halkaana ku soo dhici doonaa yidhi hawshaas tooska loo cabirayo waxaasaa dhici doona oo qaybka ah waxaan ka qaadanaynaa oo keliya ilaahay subxaanahu wa tacaala qul laa yaclamu man fi الsamaawaati waalardi alghayba ila allah wa cindahu mafaatixu اlghaybi laa yaclamuhaa ilaa huwa caalimu اlghaybi washahaada caalimu اlghaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila man irtadaa min rasuul haddaan gaalada ka rumayno waxaasaa dhacaya berina qiyaamihii meel waqti hebel buu dhacayaa buu dhihi ma rumayni qiyaamihii wuxuu dhici doonaa 2000 iyo intaas markuu ku dhaho naasaa sheegtay miyaan leenna maya waa sir ilaahay weeye subxaanahu wa tacaala idan marka gaalada warkoodan yaan lagu kadsoomin nacam inay teknolojiya leeyihiin haa inay horumar gaareen inay microscobiya qalab casriya leeyihiin inay satellite leeyihiin laakiin waxaasaa kownka ku dhici doona oo arrin rabbaani ah iyaga kama yeelayno hadday dhacdona nebi maxamed baa noo sheegay hadday dhacdo nebi maxamed baa hore noogu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaan rabaa marka 3 arrimood oo laba ay sheegeen oo beenowday oo midutan tahay miduna ay tahay 6 milyan oo sano ka hor bay waxay dhaheen 65 milyan oo sano yaa u sheegay iyaga
65 milyan oo sano ka hor dhulka dhagax weyn baa ku soo dhacay, the huge asteroid ba dhahan, dhagax weyn baa ku soo dhacay oo adduunka wixii ku noolaa dinosaur baa la yidhahda ku noolaa wuu baabi'iyey, adduunka oo dhan baa gubtay. 65 milyan oo sano ka hor bay dhaheen. beentii waayaan leen in adduunka 65 milyan oo sano taagnaa ma naqaan, in dhagax hore ku soo dhacay ma naqaan, iyagana kama qaadanayno. Nabi maxamedna nooma sheegin, allahna qur'aan kuma sheegin. been wey. idan teknolojiyadoodan rumayntooda waxaan rabaa dadka weliba physics-ka aad u bartay ee ku xirmay John Dalton iyo Isaac Newton, ilaahay ka baqa, iyo Bruno, mulxidiin waa nimankaas. ilaahay adduunka abuuray ninaan aqoonsanayn in fikirkiisii la qaato oo kii ilaahay lagu beeniyo waa imaanaysaa adoo reer magaal ismoodaya, muwaxid ismoodaya, anuu qabri ma caabudo, daaquud ma adeexo, ayaad dhinac kale mulxid ka noqonaysaa. oo see ka noqonaysaa? bilmadal qur'aanka waxaa ku taal ilaahay wuxuu yidhi qorraxdu waa socotaa, washamsu tajri limustaqarin laha. tajri waa maxay? tajri iyo taduur isku micno ma. taduur waa wareegeysaa, meesheeday ku wareegeysaa waay. tajrina waa socotaa waay. socodka nabigaa nagu baray calayhi salaatu wasalaam, xadiis saxiixan ku yaal waa wada garanaysaan. wuxuu yidhi qofkiin yuusan ku kaadinin biyo fadhiya alladii laa yajri. alladii laa yajri maxaa laga wadaa? biyo aan qulqulayn. idan qorraxdu waa socotaa. sayniska physicskuna wuxuu yidhi qorraxdu waa taagan tahay laakiin dhulkaa ku dul wareegaya. ma sayniskaan rumaynaynaa mase allah? kafarnaa bisaynis wa aamanaa billahi alwaaxid alaxad. kafarnaa bisaynis wa aamanaa billahi alwaaxid alaxad. dhanka kale balaad u fiiri, nebiga xadiis saxiix muslim wuxuu ku yidhi, abu dar alkhafaariy ayuu wuxuu ku yidhi, yaa abaa dar atadri ayna tadhabu haadihi. qorraxdu tilmaamaya oo gelinka dambe sii socota, meela u socota ma taqaanaa buu yidhi. allahu wa rasuuluhu aclam buu yidhi. way socotaa buu yidhi nebigu, meesha u socota ma taqaan. dhulka annaga nala wareegay iyadaa taagan ma dhihin. allahu wa rasuuluhu aclam buu yidhi saxaabigii. nebigu waa soconaysaa buu yidhi ilaa ay ka tagto taxta alcarshi, way sujuudaysaa, ilaahay bay iidan weydiisanaysaa, allah hawshaada waduu odhanaya ilaa laga gaaro saacadda qiyaame. kadib alla wuxuu odhanayaa ka soo bax, meeshaad u dhacaysa ka soo noqo. ikhrijii min magribiki baa la odhanaya. qorraxayay ka soo bax, meeshaad u dhacaysa. idan waa socotaa. sayniskuna waa taagan tahay buu ku yidhi. dhinaca kale haddana u soo bax, waa diintaadii baa lagaa qarinaya inaadan ka indhabe. haddaad rumayso ka warran marka, dhulkaa wareega, qorraxduna waa taagan tahay. ilaahayna uu ku leeyahay qorraxdaa socota. toos baad ilaahay uga hor timid adoo ismoodaya aqoon-yahan physiciana oo physicska aad u bartay. dhanka kale ama reer magaalo adduunyada la qabsado caalamka wax badan ka og. dhanka kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna baray fircawn inuu jismigiisa alla badbaadiyey. yaan teknolojiyada ka soo jeesanaa rabnaa diinteenna u laabanno. teknolojiyada waxaan uga baahannahay maadada waa ka qaadanayna. wixii gaybi ah oo qarsoon ama alla uu ka hadlayna iyaga ma weydiinayn. wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala maalintii fircoon la halaagayey, alyawma nunajiika falyawma nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aaya. maanta jismigaaga ayaan badbaadinayaa, ciiddu ma cunayso, si aad ugu noqoto kuwa kaa dambeeya aayad ay daawadaan oo la yidhaahdo ninkan waa ninkii ilaahnimada sheegtay kibray. wa ina kathiira min annaasi can aayaatina lagaafiluun. isagoo jismigiisii ishaystuu qaahiro yaalla, giza meesha la yidhahduu yaallaa fircawn. maxaa loo bedelay? masaaridii hore ayaa waxay yaqaaneen daawo qofka dhintay la mariyo jismigiisa oo uusan soo urayn. hal ninoo dhakhtar ay yaqaanay, ninkii fircoon markuu mariyey ayuu dhintay, cidna ma barin. marka waxaa daawo dhakhaatiirtii hore, nin faransiisa 82 oo Morris la oran jiray oo dhakhtara, hal farta faryarey baa fircoon waxay ka noqotay xoogaa ka duulaashatay, yacni wax bolosho camal noqota faryarey. dhakhaatiirtii faransiiska ugu sarreeyey cilmiga loo yaqaano surgeryga, qalliinka maqaarka lagu sameeyo jismiga hoose, ayaa la keenay, masaaridu keentay. tiimkii dhammaa iyo dhakhtarkoodii baa fiiriyey, ninkan jismigiisa dhacaan isku hayaba ma leh. la jismiga bini aadanka curuuqda iyo lafaha
iyo hilbaha waxbaa isku haya dhacaanba ma leh waana is haystaa wuxuu yidhi arrintan arrin la yaab la wey yidhi ninkii agaasimahooda la socda oo wasaaradda dalxiiska iskale oo meel dhigatay fircoon ilaalsanaysa oo waxaa waaye ilaahay baa iskale laakiin wasaaradda mas-uulka caalamka oo dhan baa soo daawada lacag badan bay ku helaan waxay ku faanaan masaaridii hore inay daawo marisay iyagiiba dabagedisan laftigooda ninkii wuxuu yidhi waxaan daawo la mariyey hadday tahay qaybta kore ka marsabile daawadu laakiin jismigiisa hoose iyo lafaha maxaa isku hayuu yidhi muu kala daato waa almost 3,000 oo sano joogaa arrintii asagoo la yaaban oo confuse wax la yidhahdo ku furan yahay oo si wax u bilaabo garan la yaa kii agaasimaha la socdaa wuxuu yidhi diinteennaa lagu sheegay ninkan yaa diinteennaa lagu sheegay oo ilaahay baa yidhi jismigaaga waa badbaadinaynaa ma qur'aankiinay ku taal lahaa nin qur'aanka ma ii keeni kartaa buu yidhi qur'aankii oo faransiis lagu fasiray suuratu yunus baa loo geeyey kaasuu ka akhriyey maanta jismigaagaan badbaadinaya bibadanika maxaa waay badanka waa oogadaada jismigaaga wey waa la halaagay haddii badbaadada laga wado inuusan dhimanayn waaba la halaage inaan ciiddu cunin wey oo uusan burburin oo bahal uusan cunin waa la haynaya wa hada min aayaati illaahi subxaanahu wa tacaala waalcibratu liman ictabar sideedaba cibrada ciddii ku cibri qaadanaysa ayay cibro u tahay qofka kale waxba umaaha sax u cibro ma garana lo meelahaan maraysa wax cibraa iyo aayad miyuu fahmaya o iska socdaa qofkaan cibrada garanayn lo'daasuu la mid yahay waalcibratu liman ictabar ninkii gaalkaa waa yaabay wuxuu yidhi qur'aankanu waa xaq buu yidhi allihii soo dejiyaan rumeeyey buu yidhi moxamedna waa rasuul ilaahay sala allahu calayh wasalam moris baa la odhan jiray faransiiska ah kooxdii la socotay oo dhan in yar mooye waa wada islaameen maxaa mucjiso ku noqday cilmigay yaqaaneen seejariga qofkan si loo daweeye ma leh si dhacaankii laisugu keena ma leh haddii shay la isu geeyo shay wax isku kabila dhacaana ma leh 3,000 oo sano u yaallaa ka hor buu ahaa waay weli sidan u yahay waxay fahmeen inuu yahay aayat min aayaati illaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay baana u ballan qaaday fircoon waxaan kaa dhigayaa aayad kuwa kaa dambeeya haddaad tiraahda ka waran fircawn jismigiisa dhakhtar baa wax la mari dad badan baa saa lagu siray tiknolojiyadii baa sirtay waxaasoo dhan waa been diinteenna waa inaan ku kalsoonaana dhanka kale horena toddobaadkii hore waan u sheegay 2 arrimood oo tiknolojiyada maanta lagu inkirayaa jiri karta haddii aadan ilaahay ka baqin subxaanahu wa tacaala dadkan i dhegaysanaya iyo kuwa dambe laga yaaba inay ka daawadaan khadadka caalamka mid waajuuj wa maajuuj waa 2 qabiil oo alla sheegay inay nool yihiin oo qur'aanka lagu sheegay maalinta qiyaamay soo baxayaan baa la yidhi calmaaniyiin iyo mulxidiin iyo niman kaloo iswata ayaa waxay ku soo qoreen bogagooda haddii juuj wa maajuuj wax jira uu yahay tuulo ma jirto ama hal buura adduunka waa la arkay satellite baa la dulgeeyey iyo dayax gacmeed maxaa loo arki waaye hadday jiraan maxaa loo arki waayey dad badan baa ku sirma yidhi wallaahi adduunka qalab casriyaa la gaaray waxaan amaysan waxba ka jirin saa hadday ku soo gasho oo aad ka shakido qur'aankii waa kufri tan kale dijaal ninka la yidhaha malcuunka aakhiri zamanka imanaya waa noolyahay xadiis saxiix muslim ku jiro oo lagu sheegay inuu meel jasiirada ku xihan yahay xadiidkii tamiimi daari ninkaasaa soo arkay iyo niman kaloo la socda wuu la hadlay markaasuu yidhi weli waxaan soo bixi doona waan dhowahay inaan soo bixu yidhi nebigii ummiyiintu ma soo baxay carabtu maxay sameeyeen way la dagaalameen waxaa dan u ah inay raacaan buu yidhi hal iluu leeyahay meel buu ku xihan yahay jasiirada saxiix muslim iyo keyrkii buu ku yaalla xadiidka wuu soo baxay ninkii nebigu u yimid nebigu u sheegay nebigu intuu dadkii tujiyey ba isagoo qoslaya wuxuu ku fadhiistay mimbarkii markaasuu yidhi ma taqaanaan waxaan la qoslayo ninka la yidhaha tamiimi daariyo ninkaan kiristaan buu ahaa nasraani waa islaamay kadib isagoo badda ku jira baddii la luntay qisadii buu ka sheekeeyey markaasu wuxuu la kulmay dajaal oo jasiirad ku xidhan oo nool qisadii buu ka sheekeeyey mar dhow baan soo baxayaa buu yidhi galbeed iyo bari waan tegi doonaa dajaal waa nool yahay jasiiraddu ku xidhan yahay soo saara dhan nimanka satellite kale iyo kuwa saddexa gacmeedka spaceship kale keena annagu marna waa rumaysannahay inuu jasiirad ku xidhan yahay oo nool yahay
إلهي كقرية قرية سوما رمي مرق ربك أدون حنا ضعيفة أو إسكعلين وهي كورونا فيروس إن العالم قوحة كدعي ويدي سكور ضعيف وعيدنا الأركن وليبة جنودا لم تروها كورونا عيد أركن سما ماله قريب وكحري ووضع حبسي ورشدي باحرا دقالي وهوصل دعي أو ودسي عظمة سياس كله الله وحده جل جلاله إذن الله ساقيبك ودينينا كلي ساس كله هدي دقح صور دعو يهدي حدك صور دعو يهدي دول قرير دعو يهدي دوفان دعو يا كيني معيد بان ويدينينا قورتي دعيسو مايا الله وحده سبحانه وتعالى وحان روا مركا إنان إسلافها من دمانتين هدي واحدة عان علماء كلا ودادوا مسلمين وحي يرادين شان يتبنك رمضان بوكوب بيغيه هددي الله شيء حديثك ضعيف كابي قاتين هددي الله شيء وشان يتبنك رمضان ما لنت جمعاه كوب بيغن أيه ويه نمان كاسو حديث ضعيف يبقى قاتين بغيب كلام شيئا إن رأي قال لغو رغمه إن حديث ضعيف لغو رغمنا إن حديث ضعيف لغو رغمه ورون انت ايديولوجي كفار قال الله لكن حديث كاس ضعيف باتفاق العلماء المسلمين إن شاء يتبنك رمضان جوك أي دعي دونتو هداي دعدنا إلهي بقدره سبحانه وتعالى وحا لغو ضعيفيين وحا ما دعي كران ماها وحا لغو ضعيفيين وحديثك وسندك ددك كجيرة أي دد بين عليالي كمدين خلاص لكن وحا لغيابا حديثك إنه صحيح ياي سندك ددك كجيران أي بين علياليين أو مركان أروشة قاعد حكرت مركان لكن بين لو هذه الوارك ماشى علماء الحديث محاوي يغنن هبل ميا كجيرة كذاب هاس ضعيف مركان إنه بين شيء أروشة قاعد حكرت الله ما فيرنا قف مجهول ولا قرن وايا كجري ضعيف ميد بدعة لوية غانا كجري أما الرافضي أما الشيعة أما خوارجة ضعيف وحيابين اللي قو ضعيفين وحكم هذه اللي واركو ولا ضعيفين يا مركا هذي هددا الصلاة الشيء دعدنا وحوي ده سيدي الله شيء هو ولي بحديث قوحوا لي مركا جوكتا مغشان وحاتر آذان سبحان القدوس ربنا القدوس سجودنا إلهي سجوده وهدي دعدوه حديث كنه ضعيف يا رميسنا سيد علماء أوتري وأنو رميسنا إنه ضعيف ياي لكن وركا قال أنك قادن لهايو واحد دامه هذا حديث ضعيف قات هذا واحد قادن يسوى حديث له هوش سوق إلهي أوده هوش سوق إلهي أوده كون كان سياسكله السيا وحور ربكينا يا وحور ربنا ترتيره يا سبحانه وتعالى وعن وركا يكسو كوبيا قف والبو النجم ده هو ساعة قيامة هدات سوقيسي يا دنيا واحد كده على سوقيسي هذا ما قال له سجرة معاه وادي مني ما بري وادي مني ما بيش صوص عطا ما صنعت كصوص عطا هذه سفيري عالم كان كلها جدالين ربي جا عابد هؤلاء شريكين هدات قبر عابد يسي الويل ثم الويل كان أولياء عابد يو الويل لك ثم الويل هك يا هلاك باك وسقنا ذي متك مناقب كالدين كالكتيو كفار إلهي رسولك يسكو كفرياتاي هداد إلهي كلية عابدو ويدو أو أولياء عابدو أما النبي عابدو أما الملك عابدو مشرك بالله العظيم انت قورتاي إلهي الله طابت كانوا دادك ودادا كجروي هداي دين هيانا بنانك هاي مادان هوران أنيري قبوريين إمادة حتى هذا الاسكو قنعين وينو هبار باسكو قنعينينا لكن لما هيو وابحين والواي مقالة وادومين لكن والواي نكي عاقله وكسهر كواس مشركين دي نبي محمد الله دقالمي وحبا وقام دونا هدانا كدرنين إلهي كونك اسكالها كلي أن عابدنو نبي محمد أن راعنو غيبك إلهي باسكالها أن أدينو نبي قوحونا أمري أن كردقنو ودينو محمد محا كفي عن إلهي كلي أن عابدنو عندنا أن كدرن واحد كفي عن مقرنا إنسان ما والله وتاس قار بدن با iyagoo xaq u arka kula dana dhibsanay oo xaq la dhibsanay muxuu waa xaqi adaa munaafiqa marka dalika bi annahum karihu ma anzala Allah munaafiqu wuxuu nacay wixii Ilaahay soo dejiyay kitaabka Ilaahay lagu dhaqo marka tala wasgalaya Ilaahay kaliya la caabudo wasgalaya xaq miya min sabaad albadi xaq way kullee oo xaq maxaad uga nixi hadaa ahlu xaq tahay ahlu xaq badan ahayn hadaa aragta xaqiyo ku dhibaya أنا حق وجعل لكن نكان معاي ذا كده محولو كده ما
ما هذا كوربان كائح لأنه محكمة فردية ما سيدا أدك وضدك يويرنا قبورين مشركين نبى إنترنت كي يقول سوق الشيخو حق بشيء لكن أدك كلادين بيجي كلادين وكوذا مشركين ده مشركين هذين سانو قاطعني وكعلي مركب واحد وشاقي انت هل كانوا قشاقي إن أنا مرنا مشركين حتى أقريو سيدا كوا كلا أقريا نقول علماء دوبنتها من الشيغان توحيدك شركك مع ديان مع ذلك واجوغان ايغا منهج سلف الصالح شيغانيه كاسو كلا هداد نقطو اسغن اسك دوبيه كور مشركي مالن اويس قلو مالن رفيعي قلو مالن تدنبه شيخ عبد القادر جيلان و يرتو هلكاس ka xadreeyo adigina aad taagan tahay ان حروف العله iyo حروف الجر oo marka la yiraahdo mushrikiinta ma ka hadashid maya marka tawxiid laga hadlayana kaliya sifaadka la soo qaato jahamiyadii waxay tiri qoladii hore mu'taziladii waxay tiri war qabuuriyiintii waxay yiraahdeen ma dhahay waa kuwa naag fadhiye awliyada caabudaya dadka nagii luminaya oo qaarkood rumaysan dhuusamareeb in la keenay xaramkii dhuusamareeb la keenay nin rumaysan dhuusamareeb kacbadii loo soo raray wax laga aamusa miyuu istaahila maya ummadda loo cadaynaya dadkay bay luminayaan naar bay u wadaan haddaan ka aamusna annaga ku cadaab mudanayn marka waa ku adadkeenaynaa bal waa ku cibaadaysanaynaa inaan caddayno qaar baa ka toobadkeena xataa odayaashoodii wallaahi kuwa waaweyn baa ka toobadkeena oo yidhi waxaan muddaan ku khaldanayn oo nin odayaaba igu yidhi kuwa ila doodi jira ku jiray munaaqibka waa ku kufriya markhaati ka ahow ku celimaan munaaqibka waa ku kufriya buu yidhi waxa ku yaal khayr baad sheegaysaa baan ku yidhi laakiin kii watayna raaci منافق النبى مناقب كياوته ما سيا ملاس كمرة نبى وتر راعي كسوع مصي وكولي وان استابوا سوق قاري وفي عن درجة كلو كسر دردونا محل مناقب كواحد كويا حتى بيبلكم يالان دعوة أنا عدينه دين بينه تهاي ذاتك أقول علينا وأنا واحد قارب بدنا نقول على ذنيان حتى كوا شركي النعب أياك يقول على سيد شاقنيان شركي النعبين لكن محاها هي شركي بان نعبته أنا وان نعبهاي وان ايدينيا أنا إلا ايديه هداد نعبته وحلا نعبيها ولا دفاع وليين ماركته وحلا نعبيهاي ومحالا قرب على ليه وليين ماركته من نعبد إذن ما من نعبد اعدام فقي إيا صونك كلية إيا صلاة إيا طهارة كان لها عل كان بدل مجري الهين وعاديننا حقا أما هقبتان هذا العالان أما يانا يقبن يانا دلال إلهي كليه هلا عابدو نبي محمد هلا راعو ددوينه ما حق با مسوا باطل إلهي كليه هلا عابدو يان لو شرييلين نبي محمدنا هلا راعو ما حق با مسوا باطل حق اسمع ديننا مسوا كان مسينا أكبر الله يعزكم جزاكم الله خيرا دعوتنا ويسعونيسا هورنا ويوسو سعوتي حتى تنفرد سالفتي بإذن الله جل وعلا وجزاكم الله خيرا والله سبحانه وتعالى أعلم.